السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee nagu xiran. Waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad wada caafimaad qabtaan. Alxamdulillaah anigana waa fiicannahay. Muuqaalkan waxaa ku tagi doonaa degmada Hurwaa oo ah degmo ka tirsan gobolka Banaadir. Inta hore noogu xirneed aad u mahadsanyihiin. Inta hadda nagu cusub waxaan leenahay soo dhawaada mar kale channelka subscribe noo saara kambareelka furta muuqaalkana like iyo share noo dhaha. aadaan u mahadsantihiin insha Allah. laamigan waa laamiga Hurwaa wuxuu kasoo bilowdaa Fagax wuxuuna tagaa X control Balcad. Hurwaa wadooyin waaweyn ee leedahay badan laakiin wado laami ahaan loo isticmaalaa hadda jirto oo laamiga Hurwaa loo yaqaano balse weli laamiga la saarin. muuqaalo horena aan idinkugu faahfaahiyay shaqadiisa laakiin ay socoto dadka lacagaha laga aruuriyay meel fiican ay marayso saari jeedino mardowna la saari doono. dadka inta badan Hurwaa wax naga soo weydiiyo waa dad rabaan meel ay hore ka tagi karaan sababtoo ah waa dhul degmadu way weyn tahay. horta waxaa jiro su'aalo kale dad badan soo weydiiyeen oo ah dhul lacag yar yar oo 5,000 4,000 6,000 ma laga heli karaa. dhul xitaa waxaa laga heli karaa 2,000 oo degmada Hurwaa magaceeda wata laakiin waa goof. dhulku markuu deegaanka ka baxo aslan qiyaas baan idin siinayaa qof walba oo idin kamida uu biri wax ku qiyaasan karo oo ah dhulka mar hadduu 5,000 ka hoos maro 5,000 xitaa ha dhihin 10,000 hadduu ka hoos maro wuxuu noqonayaa dhul deegaanka ka fog ama dhul magaalada ka fog. qaasatan markuu 5,000 ka sii hoos marana wuxuu noqon doonaa dhul bararis ah oo loogu talagalay in la maal gashto ee lacag laga sameeyo. tusaale ahaan qofku inuu 10 boos ka gato, inuu 5 boos ka gato, inuu 12 boos ka gato, inuu 20 boos ka gato, muddo kadibna dhulka calaa boos lacag u gorto kadibna uu lacag ka macaasho. waxyaabaha ugu badan ganacsiyada ah ee dadku ay aad uga faa'iidaan dhulalka kamida ama dadka Ilaahay hantida uu ku siiyo. ninka dhul badan ma gaartid sababtoo ah dhulku marba marka ka dambeeso wuu kobcayaa balse lacagta marba marka ka dambeeso nuqsaan baa ku imaanaysa. ninka maanta dollar cash haysta ee iska haya 10 sano waxaa xaqiiqa lacagta inay qiimo dhacayso. 10 sano hadduu hayo waxaa laga yaabaa 10,000 inay macnaheedu u dhiganto ama markaas oo kale mid u qalanta ay noqoto 5,000 oo kale ama wax ka yar. laakiin ninka 10 boos haysta 10 sano kadib waa nin hantiilo ah. marka dhulkan hadda degmadan Hurwaa anaga waxaan ka hadlayno waa xaafadii asalka ahayd ee Hurwaa ay ka bilaabatay ama ay ka curatay oo magaceedaba Hurwaa la yiraahdo ayada laftirkeeda. degmada ayada Hurwaa ah xaafadina magaceeda ay wadato waa xaafad marka qadiimi ah anaga markii loo fiiriyo oo wax badan dhisan haddana xaafadaha loogu jecel yahay ku jirto ciidanada markay noqoto hawada markay noqoto iyo waliba jidadka markay noqoto. madiino iyo Hurwaa junkan warta nabada qaybo kamida waa xaafadaha ama degmooyinka ugu fiican markii la yiraahdo jidad 30 mitir waxay ku dambeeyaan la dhihi karaa Hurwaa 30 jidkeeda ugu yar 20 mitir waa wadooyin yar yar oo 10 ama 6 way jiraan laakiin ma badna. marka dhulalkan oo Hurwaa xaafadii hadda anaga ku dhex jirna oo isla Hurwaada ahayd qiimaha normalka ee macquulka ah wax lagu gadaan wax ooga soo bandhigeynaa. laakiin hadda lacag yar rabtid degmada Hurwaa dhul ka tirsan rabtid waan ku heli karnaa. su'aashaas markay jawaabteedu waxa mareenaa inay fahanteen oo aad ka bagateen. waxaan marka guda gali doonaa ama aan sharaxi doonaa dhulka anaga hadda ujeedkeenu uu yahay ama aan u socono. intaan horta dhulku u soconay baan wadooyin badan oo waxaa soo marnay kala duwan waa ku dhunnay baan dhihi karnaa. laakiin dhulka waa dhulkan halkaan ku yaala wadadaan una haysta. wadadan waa 30 mitir. wadooyinka inta badan aan guryaha idinkaga soo bandhigno waa 30 mitir. aad ugu faraxsanahay maadaama dadka nagu xiran ay dalabkooda qaybaha ugu badan Hurwaa u yahay annagana Ilaahay uu noo suurto geliyay inaan helno dhulba dhulku ka wada fiican. wadooyinka waa muhiim dhul waxa laga gato waa jid. dhulkan
cabirka degmadan inta badan waa 25 boos walba cabirkiisa waa 20 lagu dhuftay 15 booskana halkaan ku yaalaa derbi qadiimiya isaga yaalo geedjuudkaas ka baxayo dhulka hadii la baneeyo carro nadiif oo banaan laga dhigo inta badan ilmaha barooni ku ciyaara dhulkuna guduu noqdaa marka taa ayadoo dadku ay ka cararayaan loo dayaa geedjuudkiisa sidoo kale waxaa suurto gasha dhulka markii geedaha laga jaro oo la nadiifiyo inay dadka qaar qashin qub ka dhigtaan ayagoo waxba u joojinaynin dadka deriska ah waliba oo wax aan fiicnayn dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo akhlaaq ahaan intaba iyo deris ahaan aan ku wanaagsaneyn inaa inta qashin gurigaaga ka soo saarto boos qof muslim oo walaalkaaga uu leeyahay ku daadiso waa wax aad macnaha dhaqan aad u foolxun weeyaan ka shaqsiyan adiga fikradaada adiga iskale jidka 30 mitir booskan haysta dokumentigiisu waa siyaad bara nadiif ah oo wax ceeb iyo cilad aan lahayn cabirka booska uu ku fadhiyana waa 20 lagu dhuftay 15 xaafada gudaheedu ku yaala dadka qaar waxayna weydiinayeen wadada weyn ee laamiga ah ee Hurwa Musaariya dhulka wadada saaran waa qaali qofku mar hadduu deegaan danaynayo uusan ganacsi rabinna waxa u fiican inuu xaafada iska dego maadaama lacagti laga yaabo 2 boos oo xaafada ku taal ay u goon lahayd oo halka inuu ka bixiyo waxa u dhaanta ganacsi hadduu ka rabin inuu dhulkiisa qaato oo xaafadaha wax ka iibsado derbigan waa derbi kulay macnaha cimri ah laakiin boosku halkaas ku yaala fahantaan wuxuu macnaha u dhow yahay ama uu saddexaad ka yahay ama afraad la dhihi karo baarka walaalaha wadadana baarka walaalaha la dhahaa wadooyinka Hurwa ee 30 mitir nasiib darada jirto waxay tahay dada guriga ka dhistay dugsiyo quraanha laga dhisay guriyana waa laga dhisay su'aalaha isweydiiyay marka waxa ku ka gudoomiyaasha degmooyinka iyo waaxaha maxay qabtaan wado inuu shakhsi ku dhiirado inuu dhisto qiil loo sameeyo ama hadhow hadii dacwad tagto ama in la jabiyo ay noqoto hadii qof madaxa ama qof dawladda ku jira ama siyaasadda ku jira inta soo hadla haduu yiraahdo in la daayo marba haduusan wadanku sharci adag ee qofka muwaadinka ah iyo qofka xilka haya isku si u qabanayo uusan jirin musuqmaasuq ma dhamaanaya jidadkan 30 mitir ahay waxay xaq u lahaayeen in inta geedaha geeduudadii qashimada laga bixiyo la yiraahdo hal qof oo dadka kamid kuma soo xad gudbi kartaan hal taako kamid Allah ka dhigay laakiin waa laga wada hurdaanina wuxuu sameeyaa bir isaga wareegsanaa dheer oo 2 mitir camal oo bir iskaga wareegsanaa sida wadada inuu asaga leeyahay midba madrasa ka dhex dhisanayo madrasada dana madrasa free ma ahan ardayda lacag baa looga qaadaya qofa wuxuu ka dhisanayaa guri uu seexana uu degan yahay waa wax aad la yaab macna la yaab leh soo noqon marka shaqadeena iyo ujeedka aan muuqaalkan u sameeynay booska wadadan oo haysta halkaan uu ku yaala lacagta lagu rabo 45,000 waa dokumenti siyaad bara ah oo nadiif ah wadadu haysta waa 30 mitir cabirkiisu waa 20 lagu dhufto 15 wuxuu ku yaala Hurwa gaar ahaan isku baar walaalaha wadada baarka walaalaha wuxuu ka yahay booska saddexaad inuu yahay afraad yahay labadaas mid ay noqonaysaa soo dhawaad marka ka faa'iideysta waana maasantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.